hadda waxaan la hadlayaa askarta habar jecel gooj cad joogta marka dagaal baa dhacay waan naxay ingiriiskana waan jooga waxaan ka naxayaa inaydan dawo helayn in hooyadiin goblantay inaydan aas helayn in dhaawiciina laga cararayo ma garata dadka aad leynaysan waxaad u leynaysaan muxuu yahay meena yahay gaalnimo meena wax tukada ma idin ku jirin islaam niyaydaan ahayn ninka burcay idin ku soo doontay deegaankiina hadduu xabad idin ku ridayo de iska celiya laakiin iminka waxa shahiida oo mujaahida ninka dhulbaantay ciidiisa jooga ina kaahin markii aad dirtay ee ku tiri wasaaradda arrimaha gudaha qabo waxaad ugu talagashay habar jecel inay dhamaato haddaad habar jecel rabto inuu jeegaanahay maxaad wasaaradda maaliyadda noogu dhiibi weyday ilaa waanaga ku dooranay maalkayaga aduu kugu bixi ku ordane maxaad maaliyadda habar jecel u siin weyday wasaaradda arrimaha gudaha aad u siisay soo dhamaada maaha dhamaada oo muriyadun ka harin maaha waxaan ku oran lahaa ama xilba hana siin hadaan habar jecelnahay ama maaliyadda noo dhiib deyntaadi baa wali lagu leeyaan ku galay ina cambaashow tolka raac oo kuwa waxa ku garaada gal dagaalka tolka raac maxaa tahay ina kaahinow yaa tahay ina kaahinow yaa tahay halkaad ku qarsoonaanaysaa maxira ciise muuse ku qarsoonaanaysaa ma guri awal baad waligaa joogaysaa nin aan tolkii la socon raga hugiisu waa tolkii iyo ciidiisa maxaa bari ka dhaariyay maxaa tolka maqaaxima ku leeyahay reer daahir burco bali dhiig baad ka hadlaysay maqaaxima ku leeyahay maalintii aad wadanka soo gashay ee aad jabhadno markaad maqaynada si aad barhal joogtay sarkaalka ahayd maxaa dadka u qabanaysay maxaad soo dirtay hooyadaa foodad ma u soo dirtay maxaad qabatay maxaad reerkiina u soo dirtay ya maalintaad jabhadda noqotay guri walba 3 gaari iyo 300 halaad baa ku xaraysnaa bakhaaraara laha dibad baa la laha maal baa la laha daara la laha tijaar baa la laha magac baa la laha reer daahir way bay noqdeen magac mooyee maalma harin magacoodina waad xumays taa ina kaahin weeyaan walaalada baahan oo baqtiyaaya akhas caleeg maadan isla yaabayn akhas caleeg maxabadun baad siisan ninkii yiraahda war maxaad wax noogu qaban weyday inankaaga askari qoro awrkaaga siiso qori siiso askari qora waxa lagu dhamaado qof wax ma ka bixisa qof wax barasho ma ka bixisa qof dhakhtar ma u dirtay qof ma qabatay ingiriiska marka timaadana waadigi noo imaan ku buraanburayna wadani baan ku miyeen haatay booska ka saara ee la iga dhex saaray markaad Manchester noogu timi Sooriyadiina hadda waa ku sino wana laga qaaday marka timaadana dadka halkanaad ku guran oo ku baaran oo dabadaad ku baaran Sooriya soo siiya marka joogtana dadka albaabka ka xidhan soo ninkii aanu imiyay wasaaradda arrimaha gudaha ugu imiyaan ku ori inan baa iga xidhan ee laha ninka ingiriiska ku xidhan shaqo ku malay adeer saddexaad baad u tahay in adeerka ina jaamac bayla dhalay ma garata waxa ku dilaysay dacid waxoo qabatide waa reer muuse waxba isu siini reer baha wala xoog ma filid maxaa bushaare cali baan dhaxilay maxaa inan tayar xidhay maxay ku xidhan tahay nin habara wala hoo inantada soo xidha ma aragta dadku wada wasiir buu leeyahay yaad iska dhaadhicin ceebaale anigu hadda imanayay hargeysaan ka soo degaya barigan ka soo degay garoowe odaynta wareegto kaloora feris baa jiray falaydkii waan ka hadho wana laga kansalay waxay maraysay sool buu maray codayntu maraysay ma hargeysa ay dhaweed mise garoowe ay dhaweed sida darteed baan uga soo degay waana garanayay inaad oranayso xidho oo qabta oo codayn waa ku fahmaya laakiin imankaan imanaya cigaal imanaya waxaad ku tiraahdaa askarta dil oo toogto xataa naga qaraxday waan ku ogahay waxaad leer raadinaysaa waan ku ogahay waan ku aqaan awow waan ku aqaan ma rabtid qof magac leh rag iyo dumar inuu reer daahir ka soo baxo inaad dadka xasuuqdo oo inaafo oo dhutinaysa ka soo dhaw waxaana la yiri bari buu sheekay wuxuu yiri war dadka leer bakayl baa tahay baa lagu yiri wuxuu dadka hadii la dhargiyo soo ka tagi maayaan ya bisad intay gaajoonaysa ku dul joogtaa ninkii dad ugu sheegay waa laga soo duubay hadalka waa laga soo duubay bisad intay gaajoonaysa ku dul joogtaa ma u leedahay dadku ma u leeyo waryaada reerka reer daahir imaamadeeda la baxay afarta imaamadaha leh imaamadeeda la baxay imaamadeeda ina kaahin iskaga hada nin walba xiniyahaaga iyo reerkaaga ku noqo nin walba inankaaga halka lagu dilayo adaa ku goblamaya inankaaga intaad awr u iibiso macaash qabsade nin walba ilmahaaga wax bar nin walba dadaal maxaa ina kaahin ka galay wuxuu ilaahay hooyada ma lehe bogaaga hagaagsanuun ho maxaa ina kaahin idin ka galay maxaa idin daba dhigay muxuu kaahin idin qaban jiray waligoodba looma hoyan reer samatara waligoodba martiba male samatariis birxanu jaalaga martiijin anigu bari aan imaaraadka ugu tagayo inta rusulana yiri wallahi inaan iga tagaynin oo hurdadiisi khadiija carab ilaahay u naxariistay ilaahay janna firdaws labadaba hageeyay buuri inan ma naan dhalino wana hurdadeeda seexata wana ay sooriyay ilaahay janna firdaws hageeyo birxanuuji laakiin rag fara badan oo fiican way ka dhasheen ma baqsayo laakiin marti malaha
wasaaradda arrimaha gudaha maxaad ka qabanaysaa haddaadan tolkaa waxba u qabanayn haddaadan tolkaa wax u qabanayn bahdinimaan wax tarin maalintay baahi kula ciirto barakadii xoolaha haddii bari la dhaafsi inaan baraxna loo tagayn baa ayuu sheega in cali carab ninka leeyahay u gudbo intaasan kaga hadhayo laakiin waa musalsal socon doona waana iman doona in cali carab haddaan u gudbo cali carab maba dhali jirinba waa ibna furaash meherku dhalaya barkad iyo cali gari baa labadaa lagu sheegaa haddii uu dhiiggii yahay aabbaha iyo aabihii waa ilmaadeen ruma waa in cali carab jaamac ana ina xasan maxamuud jaamacanay sida la yidhi haddaanu isku dhiignahay muxuu ku gartay kubra xidh carruurtiisaan turkiga wuxugu diray inaan ku awowga inantiisu dhashay markhaatiga nool ninka cabdiqani la yidhaahdo ee inantiisa qaba habar yar wax noo soo dir buu yidhi ina xuseen sargana waa dhashay waxaan ku idhi wakaasa qaado xawaalidee kugu dhow waa markhaatiga nool isagaa u awowa anigana ina cali carab xadhig daayo warqad saxeexa anoo airboortka ka helay shaqo burco oo aan agoon haysto oo ilaahay xaalkayga og yahay oo ninka ay qabaan naafa yahay oo bilaa camal aan ahay oo xamar ka soo qaxay baan ku idhi airboortka ii saxeex lee suldaankaaga ahaa kuu soo shara gaas macaawiye qaba buu yidhi hargeysaan qabtay badda cas baan ugu tegay jaan gaas macaawiye qaba wuxuu kubra jaan gaas macaawiye iskaranaynaa basaasuu kugu yidhi saxiixayga wakaa socon maysa bale waa ula imi waa kii ku jiray kubadda cagta agteeda waan xanuunsanayaa dhiikar bay hayo oo macaan bay ku kacay idaab igu yidhi ingiriiska markuu yuu soo garaacay isagoo la dhan jooga markhaatiyada nool ee halkan joogaana waa buuxeen ninka la yidhaahdo guray cabditumuxme farduus gurigeedu ku soo degay oo loo sharaxa markaas ali kubraay ninkii la oran jiray inta taag ciga cawadiyo waan boqorkii baa nala jooga ma jisto haddana deganaa baan imi waxaan ku orin ninka la yidhaahdo ina xuseen xinwaal waa markhaatiga nool maxamed xuseen xinwaal xasan cabdillaah waxaad ku inaad ninka waxaad ku soo riyeynayso ku soo riyay baan ku ori laakiin anagu isu iman mayno ninkii qalin wax igu saxiixi waayay ma kubruu u ogol yahay inay baarlamaan ku soo baxdo maba soo tahriibeen hadduu maalintii $200 baan qaadan lahaay uu ii saxiixo bakhaylnimo waa ninka saxiixa ka gaan ku inaad qalinkan igu saxiintaan u dhiibay ayri macaankii bay igu kacsan haddii uu adeerkay dhalay oo ibn xalaal yahay waan inantoodii yahay ma qalin buu ii saxiixi waay lahaa ma askar buu ii dalban lahaa miyuu isoo xidhi lahaa miyuu igu wiirsan lahaa markii aan isku aragnay burco gurigii ku taan weyne ee baranbaradu ka buuxday ee lalahaa muuse yuusuf baale ee dhintay ee kaneecadu harka galay dadkaan soo isaga dharbaaxaynay waxaan ku dhinaca cali carabow ninkii qalinka wax igu saxiixi waay maadan ahayn maxaa ay ka daba dhigmada inaad deys marka hore nin warsan galay soo sheego wuxuu naagtan dooran mayna way waalanta waa naag waalan marka waxa weeye 20 kaad baad leedahay 20 kaad baad leedahay 20 kaad baad leedahay qaxoonti walba adiga qoran maxaad reer carab jaamac tartay haddaad reer carab tahay oo ibn xalaal tahay oo reer carab tahay maxaad u eriday inaan karaa jaamacadda meesha ka baxay inay Yuusuf Carabi agoonka ahaa maxaad u eriday farxaan xoolahoodu waa kuwa barkada aan sameeyay barkada aan balidii ka sameeyay kuwa ka caba maxaad wuxuu tari weyday maxaa gurigaaga qof reer carabi u iman waayay maxaa qof reer jaamac warsamay u iman waayay maxaa qof reer warsamay ilo u iman waayay maxaad aniga igu culaadinaysaa ma timo weyn baan aho aabaheed baa maxay tahay saalixiyaha baad igu culaadinaysaa igu culaadin maysid cali caraba kuma dhalin timo weynta biyahan ugu diraa oo lacagtaan u diraa markhaatiga nool ilma cabdilaahi yuusuf weydii dhul baan siiyey waxaan doonaa baan u diraa waa dhiigayagii dhalaad inagama dhaxayso laakiin qof aabahay neceb anigu ma raba aabahayna waa kii ku dhisay ee geela ku siiyey geeli mee aabahay ku siiyey miyaad ilowde ina cali carabow haddii aad boqor baad soo sheegtaa aad tahay maxaa burca ku dhigay maxaad burca u iman weyday maxaa hargeysa ku dhigay suldaan maxamuud guuleed ilaahay raalliha ka noqday burcuu degan yahay tolkii buu wadaaye ma aragtay siduu tolkii isugu dhilay ma aragtay markii la doonayay baarlamaanka hudheelkii uu ku jiro dadkiisa kala reebay ee soo saaray imisa nin baa u soo baxay maxaa kuu soo baxay inta leed kubri eriyada kubri hadday soo baxdo yaa noqon lahaa anigu waxaad ii eriyanaysay waa naag fiicanoo dadkay wax tari doontaa magacaaga baabi'ido dadna xati dila oo gurigeeda ugu dhaca oo gala oo dila intaad aamustay baa tiri anigu gabadha waxba kuma samaynin oo waa kaas kulmiye markaasay kuwii kale yiraan kulmiye ma ka soo sharaxan maya kulmiye nacaybiguma jiro laakiin kulmiye dadka wuxuu yeelay mooyaan waxba ma tarin kulmiye waa dhibaatada loo soo diray Soomaaliland niman ooriyo walaalo ku heshiiyey oo yiri inagu dadka aynu maskaxda ka qabsano qori isu dhiib bay noqotay waa silaayo oo gabadh iyo silaayo oo iyo ina biixi iyo ninka la yiraahdo ina kaahin oo dumar isku reera qaba waxa weeyaan anigu aayooyinkay wax ceeb am dimaashiyaashay wax ceebahooyga ama ilmaadaraday wax ceebahooyga tagaysa ma jirto laakiin waxa weeyaan waxay ahayd reerihii habluhuna ay u dhaxeen inay dhahaan war tolkiin wuxuu qabta
بيهيد أنا قوري إنا كاهن عيد نوجا ما هويته قوري إنا على العرب عيد نوجا ما هويته لكن إنا كاهن ما هاي من حرانة سيد الله الشيء كاهن أحمد بعد الله وبخيل كسو تشيده وبخيل كسو تشيده ويه ما بولدون صوبابي مايو هل كو كودين دغدغلي ما يرغودي ما reer kaahin maxaa walaaladii garaamka u geeyay laga qaato balichano ma reer samatar ma yahay beerkooyinkii ma yahay xoolihii lahaa ma yahay baaburti taagnaan jirtay wuxuu rabaa isaga in la sida tasbiixda loo hadal hayo salaada waa soo gashay duhur baa soo galay asar baa soo galay maghrib baa soo galay isha soo galay wuxuu rabaa sida salaada in loo hadal hayo ina kaahin baa halkan tagay ina kaahin baa fadhiyay ina kaahin baa hadlay ina kaahin baa halkan maray oo dhalada habar jecel uma hooyatide kudheelada habar jecel uma hooyatid waxa saad qof baa ku shaxaadid oo maxaa laga shaxaadaa hal gudaan aan lagama maale yaa ku shaxaadaya kaaga bartay gacmo aan wax looga baran lama cawriye baa leeyahay gacmo aan wax looga baran lama cawriyo marka waxa weeyaan reer daahir leehdo waxa la degay ina cali carabiya ina kaahin yaa wuxuu cawaya ayaan badana waraabi caweernimay ka too socodlaysaa cawaya ayaan badana kulmiyo inta uu degay ay soo fariisteen halka ay soo fariisteen sida xun shacab halka soo fariisteen hadaba waxa xaraanay sad noqon mayso oo 200 bilyan maanta qofka haysta 200 bilyan maanta haysta xaraan haysta wax allaala iyo wax u qabanaysa ma jirto oo ku xanuunsanaya xanuun iyo bukaan iyo wali walba bukaan baa la sheegay meel heblaha la tago waa la qaado waa la carro turkiga la geeyo arabta la geeyo heblaha la geeyo bukaan baa mid waliba uu ka bixi laayay reerka habar jecel la yiraahdo nimanka iskaga hara سلطان محمود جولد وفريدة وطلقي أحمد فارح صاري ومحيه توي وحوقبتي وشقية ونوناكسنة وبلا بلودة وعافمات قبا إلهي السيادية وان سلامية waxaan oran lahaa kale u gudbaya ninka ina cabaashi dagaalka aad ku jirto horta yalla dagaalami cabaashow yalla dagaalami xabada aad ridaysaa yay dilaysaa waxay dilaysaa in adeerka iyo dhulbahanta ay dilaysaa dhulbahante iyo habar yoonis labadaba waxa baabiyay kala cacab iyaga waxaan leeyahay garxaj reerka leeyahay iyo dhulbahante kala cacab ama harti kala cacabka dilay kala cacabka waxa geela looga heesaa muddo galabtii muroodka habeen isku heshida midun ku hiro midun ku hagaag mucaarad iyo muxaafid midun noqda garxaji soo mucaarad iyo muxaafid midun noqda ama noqda muxaafid oo kulmiye noqda ama noqda mucaarad muuqda oo wadani noqda anu ucud baan ka soo horjeedaaba ha kala jajabina ama muxaafid noqda oo kulmiye noqda ilma reer wayga talo ama mucaarad noqda oo wadani noqda reerka leeyahay harti أما محافظ نقرأ ومحافظ سومالي لا نقرأ أما معارض نقرأ ودنا عسوة راعة لكن هيسك سور جسنينو هيستلنا إن عم باشو تلك هدلين تلك يو إن عم باش هدلين إن عم باشو تلك راع وكوا وحكوا جرادة قلد دجالك تلك راع إن الله لا إيه أنت دول بهانت سومالي لا نصعطه waxaan kula talin lahaa in allaale iyo inta Soomaaliland la socota ee dhulbahante ama harti warsan gali baa noqotay waxaan kula talin lahaa inta horgalka lagu sheegay ee iyagu xaraanta cunaya kuma darin waxaan kula talin lahaa tolkii raaca cidna halaynina ha ka soo horjeesanina dagaal haw raacina ku noqda garaadadiini u taga hubkiina qaata ama iskaga taga bootignikada iskaga taga idinka waxba qaadan iskaga taga nabad raadiye nimankanu waxa soo tababaray nin daarood Ismaaciil ninkii riday adeerka shalay riday ee daaroodnimo kugu ridayay ee kuula dagaalamayay ee madaxweynahaagi riday maanta maxaad ugu nacablayn ama wax wada qaybsada oo niman saamigiina idin ogol ha ahaadaan nimanka Soomaaliland ka soo jeeda hadii ay go'ayso wali ciidaba ma aqoonsanin ama saamigiina ka hela ama meeshaad saamigiina ka helaysan isu wada raaca kala qaybsanaanta iska daayay waa talo hartiyow kala qaybsanaanta iska daayay faqashiniyo kala qaybsanaanta iska daayay ma indhowto waxaan arkayay nin la leeyahay waa garaado waxa lagu caleema saaraya Hargeysa waxba kama jiraan ninka reerkooda caleema saara ninka reerkoodu garaadu yahay ma isaaqbaad garaad u tahay garaadkoow yaad garaad u tahay bal garaadkiyo yaad garaad u tahay bal garaadka halkan yimi yeelaha masharba arkay lahayn magaciisa garan maaye bal uu u yahay garaad uu yahay haddaan tolkiiba caleema saarayo garaad u yahay ma isaaqbaad garaad u tahay ya waxa weeyaan ku qarin maysa Hargeysa dalkaagii qabo afis weydiiso ina cambaashow dadkaagii qabo afis weydiiso
dadka habar jecel ee dagaalamaya ee gooja cadda joogow war gooja cadda ma idinka leh ma habar jecel degta ma ra'iis aqba oo kaalaya nin baa xabada iska kin xijinaya marka daad ku soconaya maxaa loo dhigaa mooska nimankan meesha haysta iska kan dhigaya waxaan ku noqonayaa intaa waa wada reerka leedahay habar jeclo waa inaad nabadda raadisaan dalka Soomaaliland waxa Ciise Muuse iyo habar Yoonis isugu dhufanaya waa cimri dhererka gulmiye wayaan la soo codayn waxa la culoobo waa kaarta iyaga ka timi anagu waan fahansanahay waxaan ku noqonayaa ninka hada Muuse Biixi madaxweynihii dalka ta adiga dalkan xukuma waqtigaagina waa dhamaaday waqti korortina waa doonaysa oo aakhira meedan inaad ku xisaabtamaynin aakhira hadii aad waba la dhimanaya dhimato waxay oran jireen kuwan raascanood waxaan ka maqlaa maxaa ka soo horeeyay waxba lagu soo hirtaay hadii aad dhimato ummadaas adaa dumada ka saaranta ina kaahin markii aad dirtay ee ku tiri wasaaradda arrimaha gudaha qabo waxaad ugu talagashay habar jecel inay dhamaato hadaad habar jecel rabto inuu jeeganahay maxaad wasaaradda maaliyadda noogu dhibi weyday ila waanaga ku dooranay maalka iyaga adoo kugu bixi ku ordayne maxaad maaliyadda habar jecel u siin weyday wasaaradda arrimaha gudaha aad u siisay soo dhamaada oo muriyadun ka harin maaha waan ku fahanay inaad waxaan ku oran lahaa iska cibaadeyso wasaaraddan intaad meesha haysato ka bedel ninkan aad u dhiibtay ka bedelo nin habara wala inaad u dhiib wasaaradda arrimaha gudaha annagana inaad waxaan ku oran lahaa ama xilba hana siin hadaan habar jeclanahay ama maaliyadda noo dhiib deyntaadi baa wali lagu leeyaan ku galay deyntii aan ku galay baanu wali kugu leena dawaana imanayaa kulli xabsiga waa ii diyaar dil xitaa hadaad igu dartaan war meeyanay maalintaydii ahayn hadaad dil iigu dartaan oo talan kubraha la toogto airportka hadaan ku dhinto ma maalin labaad baan dhintay meeyanay maalintaydii ahayn waxay xaq sheeg murnaha ka qaraaraatay reerkii habar jecel iyo reerka Soomaaliland waxaan leeyahay iska ilaaliya xaq darrada waxa isu soo haraya idinkiyo dariskiina waxaan waliba jeclaan lahaa oo halkan ka oranaya nin kasta oo habar jecel oo iskaga taga dhiiga iyo dulmiga iskaga taga oo intuu direyskii qoriga u dhiibay dawladda yahay anigu xilka waan ka tagay oo aan dhicin oo qoriga iibsanin oo direyska gubin ninkii ka taga anigu hadaan ku raahay oo noolahay waa soo caawinaya tala iyo tusaale iyo adduun wixii aan u helo aan ku soo caawinaya waa taa leeyahay maxkamad baa soo baxday waxa laga qaadaya xilka waxa laga qaadaya Khaliif Axmed Dawdar oo maxaad nimaad isoo tolkii dhamaysan muxuu xilkan u tarayaaba adaa ku sii ceeboobay muxuu xilkan u tarayaaba wad ku sii ceeboobaysa kulmiyo ma cimri dheer ka dhiganaysa laakiin wuxuu yiri ninkii la oran jiray masan weynu ahaa ee Cibraan berigii berbera ilaa in qolo sheegano war bileela noolay magacu inaga hari waa adduunyada wuxuu baa ka harayo bari dambuun baa la faalaynaya dib loo eegaya dib eegis baa la sameynaya marka waxaan anigu idin oran lahaa war ilmaade rayaalo waxaan idin oran lahaa hadda waxaan la hadlayaa askarta habar jecel gooja cadda joogta marka dagaal baa dhacay waa naxay ingiriiskana waan jooga waxaan ka naxayaa inaydan dawo helayn in hooyadiin goblantay inaydan aas helayn in dhaawiciina laga cararayo ma garata dadka aad leynaysan waxaad u leynaysaan muxuu yahay meena yahay gaalnimo meena wax tukada ma idin ku jirin islaam niyaydaan ahayn maxaad dadka u leynaysaan maxaad gurigooda ugu leynaysaan ninka burcay idin ku soo doontay deegaankiina hadduu xabad idin ku ridayo day iska celiya laakiin iminka waxa shahiida oo mujaahida ninka dhulbaantay ciidiisa jooga ilaahu marxaati ka haw allahumma shad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh